waayahay kusoo dhawaada barnaamijka raaxada isla mar ahaantaa taas kala door disoon kala habeen kasta barnaamijkan caawa inaba caadi maaha noo barnaamijkii aan ugu talagalay qaybta raaxada maadaama uu yahay barnaamijka qaybta raaxada sirta nolosha lagaga sheekeynayay wax ka barta dadka aan aad u aqoonin sirta nolosha ama waxa ay tahay marka kusoo dhawaada barnaamijka caawa sirta nolosha iyo kugasha sida loo wada jiifsanayo iyo sida loo wada raaxaysanayo ayuu barnaamijkeena ku saabsan yahay marka waxaan leeyahay soo dhawaada waan bilaabaya barnaamijkeena asxaabtaa soo yar badato waan bilaabaya barnaamijka isla mar ahaantaa barnaamijka aad buu xasaasi u yahay runtii markii la dhaho qaybta sariirta barnaamijka aad buu u macaan yahay maxaa yeelay qaybta sariirta waa qaybta ugu nolosha macaan ama ugu raaxada wanaagsan ee lagu dareemo naxariista nolosha marka kusoo dhawaadaan leeyahay Score TV waayahay waan bilaabanaa barnaamijkeena runtii waxaan kaga hadlaynaa laba qiso oo dhab ah oo labada qisaba soo gudbiyeen wiil iyo gabadh baa soo kala gudbista qisooyinka waana qisooyin dhab ah oo si dhab ah u dhacay weeyaan marka faa'iido idin tahay ardaydeeda inaad macalinkiina macalimiintiina wax ka barataan si aad mustaqbalka idin anfacdo isla mar ahaantaana aad ugu dhaqantaan waayahay waan jecelahay live-ka in ay ku jiraan dadkii iga soo codsay barnaamijkan asaga in aan ka hadlo isla mar ahaantaana lala talinayo waad ii sheegteen dhibta idin haysta anigana wixii aan idinla talin karayo ayaan nila talinayaa dadka kaleete ee nila midka ah ee qarsanaya in ay iyagu sheekadaas ku dhacdayna waan filayaa inay ka faa'iideysan doonaan aan bilaabo barnaamijkeenan caawa wiil baa wuxuu ii soo tiray marka aan khamriga cabo buu dhahay aad baan u kacsadaa dareemayaasheeda aad bay u siyaadaan dareen xoog aha ayaan dareemaa buu leeyahay wiilkaas dareen aada markaan dareemo ee aan kacsado buu yidhaahday ee aan xaaskayga u imaado ee xaaskayga aan markaas xilligii galmada ama wasmada aan ka dalbado buu yidhaahday 15 daqiiqo ayay biyuhu igaga imanayaan buu leeyahay wiilkaas asagaa 15 daqiiqo kaliya tol markii biyaha igaga yimaadaan ayaduna 1 saac iyo badh ayay biyaheedu yimaadaan buu dhahay marka bal u fiirsa 1 saac iyo badh iyo 15 daqiiqo qof ay biyo kaga imanayaan oo qudradaha ilaahay runtii marka maxaan sameeyaa wiilka leeyahay ila tali farxiyo Score maadaama taadi macluumaadka qaybta nolosha sirta nolosha ogsoon raaxada أنا إلى تلسه بندوني يا بوليه وايه تلوت إلهي لكن كل طلنا عن كسي سعره رنتي شني 8 دقيقة هل ساعة يبر واحد سكدو موقف شني 8 دقيقة كلية كوبية بحياة يقف كوبية بحياة هل ساعة يبر هل ساعة شني 8 دقيقة أي سبيري لما تصقف إلا معناها ولا النول قدرتها إلهي بالأوفير صدا قف إنه شيء تونت تطبيها كجي مدان قفنا هل ساعة يبرد إنه بيها كجي مدان وحيابه عجيب جويان أنا باهن إن لقوا عمر قاطع ويان وحولي هاي مركا أناك هذا وصو ويكلا تعاضنا الساعة سيدي باور لك الففوري أي كلا تعاضنا الساعة وبالون بميل ayay ku dhacaysaa uu leeyahay wiilkaas asaga waayahay laba qof hal saac ay bar biyaha kaga yimaadeen horta waa gar waa la wada islaan hal saac ay bar qof ay biyo kaga yimaadeen oo intaas oo dhan rafanayay way kala taadatay buu yiraahday adoo hal saac ay bar gabadheeda biyaha kaga yimaadaan kadib markii biyaha ay kaga yimaadeen hal saac ay bar way kala taadataa oo way kala dhacay dabcan way nafistaa u karo oo wixii gubayay ayaa ka yimaatay asagana 15 daqiiqo saaxiibka kubiya baxa dee uu ku kaciyay bay ka dhigan tahay waayahay aan ku soo socday barnaamijkeena caawa kadib wuxuu yiraahday mana toosi karayso
ilaa aan toosiyo ma ahanay markii hore sheekadu way kala dhacaysaa way kala daadanaysaa sida baabuur la kala furfuray bay ahayd hadda sheekadu waxay maraysaa way kala daadanaysaa gabadhii kolkii dabcan markii dee la wasay raaxadii iyo sirtii noloshii loo dhameeyey kabacdii way kala daadanaysaa ilaa la toosiyo ma ahanay ma toosi karaysa ayuu leeyahay maxaan sameeyaa iskoor ila tali ayuu leeyahay waayahay waan kula talinayaa marka koobaad adigu balwad baad leedahay khamri baad cabtaa oo balwad ugu xun ah gabadhuna waa gabadh aan balwad lahayn 15 daqiiqayna kaaga imanayaan biyuhu ayadoo hal saac ay bar bay biyuhu kaga imanayaan dee laba qof oo dariiq wada mari kara ama isqaadan karay ma badin baan leeyahay aniga maxaa yeelay qoftan waa tulmisay inaad iska sii dayso way wanaagsan tahay laakiin haddii aadan sii daynaynin lambarko waa inaad khamrida iska daysaa khamridu waa inaad iska daysaa balwad kastay ku tahay inaad iska daysaan kugula talinaya khamrida khamrida markaa iska dayso waa qancin karaysaa xaaskaaga laakiin qof cabsan baa tahay oo asaga dhan baa seriousa marka qoftan xaqeedii baa ku tumanaysaa baan ku leeyahay wiilka isoo weydiiyey su-aasha labaad ama aan kaaga jawaabayana waxay tahay haddaan jawaabta labaad isku dayo inta aadan xaaskaaga la kalmoonin baashaali markaaba diguska unaha la aadan xaaskaaga baashaali markaad baashaaliso xaaskaaga ama baashayso kadib waxaad samayn karaysaa taabo in ay qoyday siilkeeda calashaan baa daabanaysaa inay qoyday iyo inay kaleetolo baa eegaysaa markaad aada la baashaasho taataabato dhunkato kabacdii ee aas tiraahday dee gacanta ku daashay tiraada wallaahi hadda waa daashay oo dee intii loo baahnaayo dhan waa dhammaysay bahalkeedaa daabanaysaa inuu qoyay iyo inay kale baad eegaysaa kadib markaad eegto bahalkeeda inuu qoyay iyo inay kaleetole waxaad samaynaysaa 2 jeer ilaa 3 jeer ayadu bahalkeeda haa qoyo siilkeedu haa qoyo 2 jeer ilaa 3 jeer markuu 2 jeer ilaa 3 jeer uu siilkeedu qoyo ee aad aragtay ay 2 biyo keentay ama 3 biyo ay keentay kabacdi kuskood la aadi karsa wad wasi karsa naagtaada laakiin ayadoon bahalkeedii ama siilkeedii uusan qoyin oodan baashaalin qoftii oo dareenkeeda soo kacin haddaad dee kuskaaga la aado adigana dhib bay ku tahay gabadhana dhib bay ku tahay gabadhu marka koobaad ee aad rabto inaad wasto waa ina marka hore kusku gelisaan waa ina marka horto meel aad baashaalisaa inay meesha qoyda adeegta meesha haddii qoyday oy 2 jeer weliba 3 jeer gabadhu biyaha ka yimaadaan inta aadan wasin ka hor markaas isku marba biyo baxaysan laakiin haddaad marka hore saacad la aado kuskaaga khamrina aad soo cabtay gabadhii hal saac bay ku ay biyo kaga yimaadaan adiga 15 daqiiqo biyo kaaga yimaadaan taas dhib bay noqonaysaa marka si 15 kaaga daqiiqo aad ula sugto intaada yartaa waxaad samaynaysaa waad la sugaysaa waad baashaalinaysaa biyo isku haynaysaa haba la aadina waxa la leeyahay haddaan naagteeda marka hore soo wasaaba tiraada haddaad markaba wasto ila 15 daqiiqo biyo kaaga yimaadaan 15 daqiiqo biyo kaaga yimaadaan dee qoftan hal saac bad kaligeed ma kalkalan karsa ma rafan karsa waxbaad ku kakicsimaane waxba uma tarin bay ka dhigan tahay marka waxaan kugula talinayaa inaad aad qofta marka hore la baashaasho baashayso si fiican u salaaxdo kabacdi aad kuskaaga la aado insha Allah taas baan kula tartaarmayaa waayahay كرجو الله بصر وحولي هاي أصير رعي مرك أنكوس كيجا ناكتي السيل كده السيكني ربا وهي راجسة ولي هاي وين الماينسا طبعا وحي له راجسة لا الماينسا راح يسنكوه سنين بيكرر طاي ويقف بالآدم مركو راحة أما حريص وتريميو ma ilmeeyo mana hiiraaga ee waxa uu ku farxaa marka waxaan ku leeyahay sida aan ku sheegay
ayaad samaynaysaa marka hore u raaxaynaysaa saaxiibada marka u raaxayso baashayso kabacdi but laba jeer ama saddex jeer ay biyuhu ka yimaadaan waa taabanaysaa laba xaaskaagii waa taabanaysaa aad aragtay inuu siilkeedii uu qoyay kabacdi baa waxaad samaynaysaa inaad geliso kuskaaga markaas 15 daqiiqad ayaad ku wada biyo bixi karaysaa laakiin adoon qoftiida taaban istiimino sideedii tahay dad iskala bootun adiga dee taas waa dhib weeyaan qoftaas xaqeeda maadan gudanin baa dhihi karaynaa marka adigana walaalo isku day in aad iska dayso khamridu ma aha wax wanaagsan waayo khamridaas waxaa laga yaabaa inay tahay ayada waxa shahwada gaasoo tijinaysa in ayada tahay baa dhici karaysa marka haddaad i daawanayso kole waan jeclay inaad i daawanayso iska daaban kuleeya walaalo waayahay taasi waxay ahayd qisada wiilka uu noo soo gudbiyey bay ahayd qiso kale oo gabadh noo soo gudbisaba ayadna halkan ku haynaa sidaan hore idinku sheegay sharciga barnaamijka waxaa ka mamnuuca qofka magaciisa in la sheego meeshuu joogo in la sheego waa ka mamnuuc barnaamijkeena waayahay garagoo laba saar aan kusii socdo taasi qisadii wiilka ahayd qisadii gabadha baan kusii soconaynaa gabadh baa waxay leedahay da-daydu waa 18 sano ilaa 19 sano ayay u dhaxaysaa bay tiraaday maadaama ay da-deeda 18 sano ilaa 19 sano ay u dhaxayso reerkaayagu waxay igu dareen bay tiraahday ninkii markay igu dareen ninku waxay tiri gabadhu waa 40 iyo dhowr sano jir bay tiri gabadhu ninkii aniguna dee 18 19 dabcan waa dareemi karaysaa waa iska curtan ninkana 40 sano ilaa iyo kor wax ka jira ayuu jiraa kadib gabadhi markii ninkii loo guriyay deg sidii caadada ahayd loo gurigeeyay wuu qancin waayay gabadhi ninka sidii la rabay gabadhi wuu qancin waayay ilaa ninka waa nin hore xaasas hore soo kursaday da-diisii weynaatay awoodiisii la ciiftay wuu tamar gabay dee gabadhana waa gabadh yar oo waxaan xiiseynaysa u baahan dee jim fiican u baahan bay ahayd ma garanaysaa kadib gabadhii adigu qancin waayay saaxiibka aad buu qancin waayay gabadhu way ku rafaadsan tahay sheekada waqti xaadirkan bay taagan tahay gabadhu waa aras cusub 40 cisho kaliya doole hadda waa 40 cisho oo kaliya ayay ninka iyo naagtu wada joogaan waa gabadha iyo ninka loo guuriyay odayga ana nin ma dhihi karay odayga gabadha loo guuriyay iyo gabadha iyo odayga adiga 40 cisho wada nool yihiin muddo 40 cisho ah ayay wada nool yihiin 40 cisho maadaama ay wada nool yihiin waxay suga waayahay garogo laba saar gabadha iyo odayga iyo gabadha muddo 40 cishaha ayay wada nool yihiin maadaama muddo 40 cishaha ay wada nool yihiin gabadhi ninka waxay tiri 40 cisho hal habeen aha si fiican imuna wasin si fiican imuna wasin bay leedahay gabadhu imu raaxaynin awood xasnimada kama ahay awood buusan meesha ku haynin awood wax la yiraahdo meesha kuma haya ayay leedahay gabadhaasi waayahay midda kale waxay leedahay gabadhaasi kii hore maxaan ir 15 daqiiqo kaliya biyaha kaga yimaadaan gabadhan wayba ka tartay waxay dir 5 daqiiqo ay biyaha kaga yimaadaan odayga waa sheeko cajaa'ib runtii waa sheeko marka waxaan leeyahay gabdhaha yaryar ama hablaha yaryar ee lagu tarayo odayaasha ha laga daayo waayo ma baahitiri karayaan gabadhiina way xishoonaysaa inay reerkii u sheegto oo tiraado ninkani ima qanciyo way xishoonaysaa bal ay gabadhan hadda 18 jir ilaa 19 sano bay da-deeda u dhaxaysaa ninka loo guuriyay ee reerkooda uu guuriyayna waxa weeyaan 40 iyo dhowr sano wuu wasi leeyahay mar hadduuna wasi karaynin naagta inuu iska furaa wanaagsantahay laakiin nimanka Soomaalida ama odayaasha Soomaalida waxay yaqaan in iska ag joogto bay doonayaan
naagtantay bariis may soo doonanin guriga hooyadeedba bariis way ku haysatay laakiin was may soo doonatay iyo inay dee wax kaa dheefto tii haddayna kugu haysanin oo aadan qancinaynin dee qofkan waa bila-aadmi qof kaleeto u raaxeeyo ayuu dunida kale ka helayaa marka inaad iska fasaxdo ayaa ila wanaagsan aniga marka gabadhaas aad bay u cabanaysaa muddo 40 cisho aha 40 cisho waa bil iyo 10 cisho kaliya doola ayay xaas tahay hal habeenna lama baahi tirin xitaa gabadhu waxay tiri aan idinku sii tare fikri jabinteedii rafaad badan ayaan kala kulmay waayo qof awood la muusan ahayn ilaa haddeertan xitaa iyadoo 40 cisho la qabo aad uma fikri jabsana gabadhaas ayada raaxa loo raaxeeyo iyo si fiican oo loo waso iska badaa waa ka xumay runtii dhibaatadaas oo dhan kulli finti inta waxa ka dambeeyo waalidiinta ku taray inta ay lacag iyo hunguri eegayeen inantan yar 18 ilaa 19 sano da'deeda u dhaxayso ninka 40 sano jirka ah ay ku tareen marka waxaan leeyahay waalidiintuna iska daayaan dhooni raaca oo ma dhahayaan xitaa kabadhii ma hadayba ku tareen ma ku qanciyeen ninkan sirta nolosha ma weydiiyaanba waxay u haystaan kaliya toon labis fiican cunto wanaagsan guri weyn war guri weyn labis maxay tir hadaa marba qudinki kubii bihi aan liiga keenin maxay taraysaa nasiib tarra weeyaan runtii aan cambaaraynaya waalidiinta gabadhaas hata waxay leedahay ninkii oo nin makacsado igu noqday nin aan waxba dareemaynin buu noqday nin wuxuu noqday tabar la'aan baa haysabay tiri marka hata waxaan ku aansaday eeg inantu waa 18 sano ilaa 19 sano da'deeda u dhaxaysa hata waxaan ku aansaday bay leedahay geed la yiraahdo kusbadeed baa la yiraahdaa geedkaas ma garanay inaad taqaanaan geed la yiraahdo kusbadeed ayaa la ii sheegay way tiraahdo in uu daway ka yahay dadka aan kacsanin marka geedkaasaan rabaa inaan u isticmaalo ayay gabadhaas tiri kusbadeed baa la yiraahdaa dabcan kusbadeed waxa loogu bixiyay de kusku dawo u yahay baa laga wadaa dadka aan aqoonin way dhici karaysaa anigu magacan wiigu cusbaa maanta ayaan bartay laftirkayga maanan hore u aqoonin dad badan oo sidoo kale ka ahaan inay ka faa'iideysan doonaan waan filayaa ama hablaha ahaadaan ama inamaha ahaadaan dadka kacsiga aan kacsanin waxaa la helay dawadii lagu kacsanayay adeerayaal dawada waxaa la yiraahdaa kusbadeed baa la yiraahdaa waxaa laga helaa meelaha badaha ay ku yaalaan waa la qalajiyaa waa sida warbixinta igu soo gaadhisay waa la qalajiyaa kadib waa la tumaa intadaa loogu taraabaaliyay kadib madaxa kacsiga noqonaysaa marka gabadhii waxay leedahay maadaama aan u baahanay cid wastaan u baahanay ninkan waxaan u guursaday inuu waso bariis maanan usoo doonanin da'deedu waa 18 sano 19 sano u dhaxaysa ninka la ii guuriyay 40 sano jira 40 sano maadaama uu jiro uu i qancin waayay awood muu hayo awoodiisa hore uu usoo dhamaystay anigana qof hata cusub baan ahay oo u baahan nolol reerkaan ayaana ninkan igu qasbay kamana tegi karayo muddo 40 cisho aha ayaan ninka hadda wada joognaa way tiraahday gabadha haddaan hadda kasoo booday waxaa la leeyahay ninka reero horuu dhaqan jiray reeraha horuu lahaa reerihiisa hore dhib iyo dee waxba kama soo eed sheeganayaan maxaa adiga baas oo ku wada adiga dee qumaya aha waxaasaa la idhahayaa marka anigana taasaan ka cabsanayaayo waan iska aamusanahay hal habeenna si fiican la ima wasan bay taagantay ka odhan ka ragoo 2 saar marka hata gabadhi calay kulli xal waxay ku aansatay geedka la yiraahdo kusbadeed waa geed sida la sheegay saan filayo ma hubo in geedka la dhaho kusbadeedka magaciisa inay gabadhaas hata isticmaasho ninkaas ay u isticmaasho bay doonaysaa si uu u kacsado oo si fiican sariirta loogu qanciyo ilaa halkaas bay gabadhii la maraysaa aniga waxay soo weydiisay marka maadaama arrimahan aan ka hadlo sababta aan uga hadlayna aan arkay baahi fara badan oo jirto awgeed in ay tahay inaan uga faa'iideeyo dadka aan kacsanin gabdhaha wiil waxaa jiray habeenadii dhawad soo weydiinay naagahan qabna ma kacsadaan
haddaba naagahana aan kacsanina waxaa loogu talagalay geedkan la yidhaahdo kusbadeedka ayaga laftirkooda way isticmaali karayaan rag iyo dumarba way isticmaali karayaan qof kasta oo dareenkiisa hoos uu yahay geedkan hadduu isticmaalo la yidhaahdo kusbadeedka horey buu dareenkiisa ka kacayaa hawshiisana uu gudanayaa marka ma xuma in wax la isku sheego dadow ma xuma dadku waxay u arkaan haddii wax la isku sheegay in xumaan ama ceeb laga sheekeynayo laakiin anagu xumaan iyo ceeb kama sheekeynayno waxaan ka sheekeynaynaa wax jira oo dhaca midda kale toole waxaan halkan rabaa inaan ooga sheego waalidiinta Soomaaliyeed gabdhaha yaryar ee ay nimanka anu niman ma dhigi karo odayaasha 40 sano ilaa 50 sano ilaa ay ka weyn ay ku tarayaan gabdhaha yaryar ee 18 19 meelahaas da'doodu tahay in ay ka taayaan aysan lacag eegin eegaan gabadhan way yar tahay markay gabadhu yar tahayna waxay u baahan tahay la badbooda qof calashaan ay isku qalmaan inay raaciyaan laakiin in laga eego gabadha maaha guri qurux badan baa loo dhigay maxay fadhi maxay loo dhigay inta noocaas dhar looma baahno wixii ka muhiimsanaaba gabadha looma qabanin marka waan idin sheegay nolosha mid kale dad waxaan arkayay maanta dhahaya noloshu ma aha sariirta kaliya noloshu way cayn badan tahay wax caynkaasa adeer nolosha koowaad sariirta ka bilaabataa hadina inagu laftirkiina aynan aqoonin faa'iideysta baan leeyahay waxa kale oo idin sheegaya mar dhaweyta waxaan arkayay gabadh video soo duubta oo leh kintir iguma yaalo horta waa salaamaya gabadhaas meel kasta ay joogto dad noocaas jira anigu dadka noocaas aan u hadlaa waxaan u hadlaa gabdhaha sariirta lagu qancin waayay ayaan u hadlaa waxaan u hadlaa wiilasha naagahooda ku kadeedan baan u hadlaa cid kasta oo xagga galmada ka dhibaataysan ama qaybtaas dadku inta badan wuu ka xishoodaa sida qofka bili aadamiga ah ay xanuunada kale uga dhici karayaan xagana wax ugu dhici karayaan dhibaato kale ka haysan karaysa marka haddii la soo gudbiyo dad baa waxay ku leeyihiin kaba sheekay hataa doonto oo si kale u dhig oo xubinta taranka iyo wax dhe waa isla midkii waxna markii la sharaxayo ama la baranayo ama laga sheekeynayo waxa fiican si fiican loo qeexaba wanaagsan way wixii dad yar dhaahdo maadaama dad u sheegayso qofka marka wada joogtaan si fiican u fahansiin karto laakiin dadkii media la socdaan maadaama media la socdaan waa inaan wixii kala dhigdhigo oo ku qasbanahay qof kastana asaga xor aha noloshana jujuub ma ahan qof kastana asaga xor aha marka in la isku mashquulana ma wanaagsana anu dad markasta dhibaato haysato baan soo gudbinayaa in la dhaha maaha dadka dhibaatada haysta maxay soo gudbinaysaa dadka dhibaatada ma ku taawana wallahi dad rumaysanaysan been idima sheegay inta message soo gaarsiyo qof cabanaya ee kula bal eeg waxa saacahay bal eeg rag iyo dumar ba iskugu jira ma maleynaysi been idima sheegay anigu aan leeyahay kama wada gaari karayo habeen ballaban soo qaadanay ama habeen mid baan soo qaad wax dhamaanaya ma aha 10 sano hataan wada xitaa inta message ku jirta intaan soo gaarin hada iska daa ma dhamayn karo inta nin kasta muxuu sheeganaya dib u sheeganaya in kasta wuxuu leeyahay saasa ay haysta mid kale tar waxaan arkay naagaha la leeyahay way kacsi badan yihiin nin aan kacsanin baa ku hagaagaya nimanka kacsiga badanna waxa ku hagaagaya nimanka kacsiga badan naag ma kacsata ku hagaagaya horta waa istamar anu laftirkay waxaan markaa message-yada aan arkay u leeyahay mid anigu waan kacsada mid waxa arkaysaa ku dhahaya waxa kale oo idinku tariya qiso kale saddexaad baa idinku tariya inkastoo inay qoreen laakiin waan idinku tariya qisada waxa weeyaan wiil bay la soo xiriiray wallahi been idin ma sheego wuxuu yiraahday kuskayga aad buu weyn yahay kuskayga maadaama uu aad u weyn yahay wuu yiraahday naag baan kursaday naagti way igu dhiman gaadhay buu yiraahday markii igu dhiman gaadhay waan iska furay buu dhahay naag kale aan kursaday sida si leeg buu igu dhiman gaadhay adna waan furay buu yiraahday naagti labaadna كتب أجانب أنتج أجانب كم حلو هي عادي ويان لكن Soomaali da budhay labada san kurso labada way ugu dhiman gaadeen tii naagna oo baahan oo kama maarmayo maxaan sameeyaa ma kuskayga wax wata naagaha Soomaalida way qaylinayaan way dhibsanayaan way igu dhiman gaadayaan mid kasta markaan hal habeen aan
saas u waso isla kilinka dambe isbitaalka loo ortaya laakiin naagaha kale toole waa caadi buu dhahay sababtaas marka maxay tahay runtii sababtaasi waxaan ani aaminsanahay waa tultulista naagaha cadaanka ma taltalo maadaama aysan taltaleen taasaa keenaysa inay wax kasta u dulqaadan ku weyn baad tiraahday adaad waxaan ku dhahay tiir dhexgelisa xataa ayagu ma kala jeclo naagaha cadaanka laakiin kuwa Soomaalida ah noloshiiba lagu cadaabayo meeshiiba waxa laga dhigay meel aan weligeedba aan la furfureynin baa laga dhigay marka ayada dhanba marka saad ugu dhaweyso dhawaaq bika horgeynaysaa way boodaysaa tii Soomaaliyeed ahayd marka waxaan leeyahay waa tultulista walaalo gudniinka fircooniga weeyaan aan ku sii tara dhalinyara waxay ayaguna soo weydiinayeen gabdhaha fircooniga loo guda iyo gabdhaha sunniga ah teebaa raaxa macaan waxaan ku leeyahay walaalo wax isku dhow maaha gabadh sunni hadaad hesho jannada ifka heshay ku fara adayg baan ku leeyahay gabdhaha sunniga waa ma sha Allah weeyaan laakiin tutaltalan hadaad guursato waa isku rafaadaysan baan ku leeyahay marka wax isku dhow iyo wax la isku doorsan karayo ma aha gabdhaha sunniga waa jannada ifka weeyaan laakiin gabadhu hadii fircooni tahay carar baan ku leeyahay waayahay ka rogo laba saac waan jecelahay dadka isoo qoray message-da in ay live-ka ku jiraan itaawanayaan mid kale toolo qof kasta way qabsanay xulay maxaa ani taydu sideen weeyna maxaa طبعا مسجدا فربنا ودريمي كريسان مادام مسجدا افربدن yihiin hadba inta ugu koraysan ma ka soo yar qaad qaadanaya bay tahay qofkii aan ka tagaana xumaan ma aan uga tagin barnaamijyada dambe baan insha Allah ku soo qaadan doonaa marka rag iyo tumarba horta way cabanayaan rag iyo tumarba way cabanayaan qofka laga cabanayo anigu ma garanayo naag waxay ku leedahay aniga si fiican ninkayga ma waso naagti kale waxay ku leedahay anigu ninkayga si fiican ma waso war hataa yaa si fiican loo wasa see wax u jiraan dado waata hata labadan qiso aan hayo waa wiil iyo gabadh midba meel butinida tacaliyadeeda ka jooga gabadhu waxay ka cabanaysaa anigu ninkayga ima si fiican ima qanciyo si fiican ima waso sarrta iguma raaxeeyo de waan ku kadeednahay waxaan ku wada inanta xitaa si fiican aan ula sheekaystay been idiima sheegayay muddo badan aan inantaas la sheekaysanayay oo aan su'aalo weydiinay waxaan ku idhaahday walaalay ma dareensiisay baan ku ama ma u sheegtay ninkaaga in aad u baahan tahay inaad u baahan tahay wasmo ninkaaga ma dareensiisay baan ku idhaahday ninkaaga ma dareensiisay baan ku idhaahday inaad weli baahi qabto oo aadan dharkin una hal habeen xitaa una ku qancin haa way ku tiri wuu og yahay laakiin muxuu qaban karaa tiri awood la'aan ba halkaas dhigtay markaasaan ku urtay hadduu arkay wuuna ku arkaa inaad inan yar tahay mu iska kaa fasaxo markaasay tiri imuna uu fasaxayo imana uu wasayo si fiican imuu qancinayo marka waxaan sameeyay walaalo waan garan lahay bal ila tali dadku beebay moodayaan laakiin waa dad baa kule aamus ha ka hadlin kaalayda dadkan idinku wasa hadaba wasmado baahan dadku idahaya aniga aamus naagina ma boolaha hadlay dadka aniga idahaya aamus gabdhahan la leeyahay waa la guursaday mayna guursanin god bay ku dhaceen kaalay idinku wasatay ninkii ama naagti dambe weydiisa ha soo dhaqaqo ha wasalayaga ha qanciyaan markaas waa aamusaya laakiin kabadhii waxay u baahan tahay wax wasay u baahan tahay kuri baa laga soo guursaday nin baa ku qabaa la leeyahay maxay ninna ma qabate nana baa qaba marka dadka dhahaya aamus dadkan cabanaya ha u yimaadeen ha wasan ha qanciyaan markaas waa aamusaya waayahay wiilkan wuxuu leeyahay 15 daqiiqo kaliya ku biyo baxaan naagteedu hal saac iyo badh bay ku biyo baxdaa bal fiiri farqiga u dhaxeeya labadan qof oo is qabaanay saacadii 15 daqiiqo u dhaxaysa saacadii 15 daqiiqo u dhaxaysa waayahay naagtii dawaysi doonaysaa saaxiibka waad ogtihiin kuskuna duu biyo ka yimaada awood ma laha maxaa talaha marka waayahay marka meesha waa la isku dhiban yahay runta markii laga hadlo
dadkan xal in loo raadiyo weeyaan maaha qofkii ka hadla in la qabsado la yidhahdo maxaa uga hadlaysaa kan marka idinku soo dhaqaaqa anaa naagaha u baahan wasmada farta idinku fiiqi kaalaya wasa nimanka naagaha u baahan wax ay wasaan waayeen anaa farta idinku fiiqi kaalaya wasa oon ka ahayn sharan afkiina haysta karagoo laba saar dhalinyaro kale waxaa jirta ayaguna isoo weydiiyey kuskaygu wuu yaryahay waxaan ku weynaysiiyaa waxaan leeyahay kuwa su-aashaas isoo weydiiyey kus la weyneeyo faa-iido ma laha kuskaaga yarka hayso kuskaaga hadduu yar yahay oo uu yahay kii qufac labaxa uu yahay waa iska haysanaysaa walaalo marka iska haysato waxaad sameynaysaa oo keliya dowlad naagta waad baashaalinaysaa baashaal baad nafta kaga qaadaysaa maadaama kuskaaga uu yaryahay waa markaad baashaaliso ay dhowr jeer biyo baxdo kabacdii ayaad kuskaaga gelinaysaa bas saasaad ku baahid beelaysaa naagtu laakiin haddaad tiraahdo kuskaygii oo yar ayaa naagtii dhex gelinayaa way ku dareemaysaa inaad kus yar tahay markaas inay dee kus yari kaaga tagtaa dhici karaysaa marka waxaad samaysaa nin alla ninkii kus yar oo dhan wuxuu sameynayaa naagta baashaal iyo baashiin iyo ayuu kala dul dhacayaa ma garanaysaa kolkuu kala dul dhaco oo intaasoo dhan uu u sameeyo oo say tahay uu ugu masaajeeyo kolka ugu dambaysa ayuu deetana shabaqa goolka ku laadayaa markaas ma dareemaysa kuskaagu inuu yaryahay inuu weyn yahay ayadoo waa la baashaalay waa la wasay ma oga inaad kus weyn tahay inaad kus yar tahay marka nimanka kuska yar siyaasad weeyaan markaas wakaas waayahay qaarna waxay ka cabanayaan kuskaanagu weyn yahay sidaa da wiilashana kala doolo wiilkan yidhaahda laba naagood baa igu dhiman gaadhood soomaali ahaa labadiina hadda banaankan oo kala maray horta su-aashaas in badan ay igu soo noqotay ilaa 3 qof ilaa 4 qof ay soo weydiisay horta wiilkaas saas buu dhahay laba naagood oo soomaali igu dhiman gaadhay kuskayga weynadiisa ogi kadib waan sii daayay laakiin caqaanka markaan u tago buu yidhaahday waa caadi ayaan ula kalmoon karayaa ku kaleetan asna wuxuu leeyahay naagtayda buu dhahay kuska inaan wada geliyo ma okolo inaan fiid baseetoole aan ka geliyo bay doonaysaa marka aniguna waxaan doonayaa inaan wada dhex gasho maxaan sameeyaa isagana leeyahay marka waxaan ku leeyahay kaas wiilkaas si laftigiisa waxaan leeyahay dee malaha kaaga hadduu aad u weyn yahay intii uu kaaga gaadho uun waa dhici karta naagta siilkeeda inuu mararka qaarkood uu yaryahay adigu kuskaaga uu weyn yahay laakiin aduu si aqliyan aha u isticmaal baan ku leeyahay waayahay karagoo laba saar aan kusii socdo barnaamijkeena wiil wuxuu leeyahay naagtayda inaan tabada intaan fuururiyo calashaan waa sida gaalada intaan fuururiyo inaan wasan mooyeen inaan si kale u wasan naagtayda ma okolo marka maxaan sameeyaa wiilkaas leeyahay marka tabada bay doonaysaa in naagta looga tago maadaama tabada doonayso shareecada islaamka maxay ka qabtaa buu leeyahay waxaan ku leeyahay walaal in tabada naagta looga tago shareecada islaamku ma okolo wayna diidaa sida kale tole ayay ina faraysaa haddii aad awoodayso asagana wuxuu leeyahay naagtayda waxay leedahay haddaad tabada iiga tegaynin maba ku raba idhaaf anigana tabadaas waan dhibsadaa inaan naagtayda aan tabada ka maree inaan si kale u isticmaalan doonay ayna sida kale iga diidaysaa de habeen kasta waa noo tagaal maxaan sameynaa waxaan dhihi lahaa adaa ka saxsan waayo naagta way khaldan tahay in tabada la iskaga tagana ma okolo shareecadeenu marka siyaabaha kaleeto dhan waa u isticmaali karaysaa laakiin tabadu waa xaaraan kana diid baan ku leeyahay haddii issii walwaashana warqadeeda sii waayahay
aan ku sii socono barnaamijkeena qofba waxba horta ku weydiinaya nin kasta dhibta haysato unbu ka hadlaya qofba boogta ku taalbaliya isagay balbashaa qof kasta waxa asaga kubaya ama dhibaya unbu ka hadlayaa runtii qaar waxay soo weydiiyeen su-aasha ah haddii calishaan ay kuska naagtaanada naga dhuuqdo maxaa dhacaya ma naga jilcayaa kuskanaga haabaan leeyahay kuskina walaalo wuu jilcayaa hadday in laga dhuuqo maxaa yeelay tusaale yaraan idin siinayaa qofkii iska hadlaya ha iska hadlo waxba igama gelin laakiin inta faa'iideysanaysa ee barnaamijka jecel baan anigu la hadlayaa una faa'iideynayaa haa walaalo kuskaaga wuu jilcayaa haddaad naagta ay kaa nuugto ama kaa jabto tusaale yaraan ku siinaya hadda wadamadan reer galbeedka ayaa ku noolahay naagahooda maadaama dad isku diinaha aynaan ahaynba way ka nuugaan way ka jaqaan naagtaas mooye naag kale toole xitaa naagtan uu qabo xitaa aad uma qancin kara nimanka hadda reer galbeedka naagtu waa inay tataabato dareenkiisa kicisa baashiiso gabacdii ayuu dareenkiisu kacaa sababta ugu wacanna waxa weeyaan naagtii wuu wasayaa maxaan ku dhahay markay uu wasayana way ka dhuuqdaa naagtu markay ka dhuuqdo marka asagii dareen saa-ida ma yeelanayo marka naagti bal adaan ku su-aalay hadda bal naag caado dhan ka karaac ma ka karaacday haddana ha nuugta bahalkaagi dee maradu biyaha markii laga maroojin saas kale ma noqoto saasoo kale unbaa noqonaysaa marka dhuuqmadu way dishaa wiilasha Soomaaliyeed baan la hadlayaa hadday gabdhuhu idin dhahaan qaar jecel baa jira baa laleeyahay ayadoona caafimaadiyan u fiicnayn ama siil naageed la leefo ama kus naageed in la jaqo diinta islaamku waa ku xaaraan caafimaadkaagana uma wanaagsano nin haddaad tahayna kuskaaga in la jaqo kuma wanaagsano waayo awoodda kaa tegi karaysa dadka xitaa ku dhahaya si hadda qisada xalay ka sheekeynayo kale wiilka igu lahaa kuskaan naga jilcay oo kale doolo waa dhuuqmada weeyaan wuxuu kaaga jilcay marka dhuuqmada iska ilaaliya wiilalo way xun tahay dhuuqmadu waayahay ka rogo laba saar waxaan aan soo gudbinayo waa dhab dadkii ii soo gudbiyana waan jecelahay in ay live-kan daawanayaan oo si live ah ii daawanayaan anuu qisadoodii halkan kasii gudbinaya qisooyinkan iyo qisooyin lamid ah haddii aad haysaana waad ii soo gudbin karaysaan waanaan sii deynayaa waana idinka faa'iideynaya anigana wixii tamartayda ah maxaa yeelay maanta waxaan bartay geed la yiraahdo kusbadeed oo qofka hadduu kacsan waayo oo makacsado noqdo la siiyo isla mar ahaantan uu dareenkiisu ku kacayo oo uu kacsanayo geedka la yiraahdo kusbadeed dad badan oo aqoonin way dhici karaysaa anigu maanta aan bartay maanin aqoonin wax kastana wuxuun baa laga dhaxlaa horta anigu magaca maanta horta yaan bartay waan rajeynaya waxaana laga helaa dadka aan u sii faa'iideeyo geedkan la yiraahdo kusbadeedka waxaa laga helaa baa la yiraahday meelaha ay baduhu maraan xeebaha ayaa laga helaa meelaha kale lagama helo kadib xeebta laga soo dhex saaraa waa la qalajiyaa waa la tumaa cuntada ayaa lagu isticmaalaa kadib qofkii wuxuu noqonayaa qof markasta kacsada markasta wax dareema aan ku sii socda barnaamijkeena wiil baa wuxuu soo weydiiyey markasta waan kacsadaa su-aashaas waxaan jeclahay haddii aanan khaltaneyn dhowr qof baa idin weydiisay markasta wuxuu dhahay waan kacsadaa wiilkaas isaga ahaa markasta waan kacsadaa xaaskayga waxaan jecelahay habeenkii inaan 2 jeer aan u kalmoodo ayaduna way iga diidaa buu dhahay inaan 2 jeer habeenkii u kalmoodo ee waxay doonaysaa hal mar inaan u kalmoodo marka waan isku dhibanay maxaa sameeyo qoftan si ay aniga ay ayada laftirkeeda dareenkeeda uu u kaco oo aniga sida 2 jeer ugu baahanay ay ugu baahato maxaan ku sameeyaa saas bay ugu dhahay wiilkaas isaga ahaa wiilkaas waxaan leeyahay walaalo adigu dareenkaagu kulul yahay markasta waad kacsataa habeenkina 2 jeer baa jecesha naagtaada inaa wasta soo ayadana waxay doonaysaa hal mar oo kaliya inaa habeenkii u tagto waxaa sameynaysaa naagta bilaa nafaqo weeyaan nafaqo ka badi nasniyaha naagtu ha badsato kadib markay nasniyaha badsato alaabta qudaarta iyo kalluunka iyo hawlahaasna ay cunto way kacsanaysaa
labada jeer aad ugu baahan tahayna way kula oofinaysaa haddii aad u samayso arrimaha aan soo sheegay markaas way kacsanaysaa naagtooda 2 jeer iyo 3 jeerba markaas way ku ogolaan karaysaa wiilka la wixii soo weydiiyey naagtaydu way kacsi badan tahay asaguna naagtaydu way kacsi badan tahay bay soo weydiiyey markasta waxay doonaysaa in aan waso haddii habeen tahay hadday maalin tahay xilli kastaba in aan waso bay jeceshahay buu leeyahay naagtayda anigana waan dhibsadaa buu yidhaahday inaan markasto aan waso naagta marka maxaan sameeyaa buu leeyahay naagtayda aad bay u kacsi badan tahay anigu laakiin ma kacsi badni buu leeyahay maxaan sameeyaa marka balo fiirsa meeshan waa dunidu inay iska soo horjeedka tahay dadoo aamina waxaan leeyahay walaalo عادي هتا كعسي بدن تهي ناكد هتا كعسي بدن تهي أديو آدو كعسنين waxaa samaysaa فيتامينada ka yar فيتامينada isticmaal فيتامين fara badan walaalo isticmaal qudrad fara badan kalluun fara badan waxyaabo fara badan isticmaal markaas qofta si fiican ba u qancin karaysaa waayo hadda habeenkii si fiican sararta ugu soo qancin lahayd maalintii ma ayna ku daba socoteen laakiin xalay baad sararta ku kaakicisa una kaga soo carartay marka ay noo xasleeda maalinnimadii maalintiina dee iskaga baahantahay lan xalay sararta waad ku ama joojisay marka kabdha kacsi badan baa jira kabdhaha kacsiga badan nin ma kacsadahay u tagayaan nimankii kacsanayna naag ma kacsadaha bay u tagayaan wixii ba istawa wareegaha marka waxaan leeyahay asxaabta dadku hadaba dhibaatadaas qaban dhibaatadaas baa leeyihiin dadku ha qarsadaan marka si u qarsanayaan marka waxay arkeen meel oo dhakhtar joogo oo tabiib joogo oo laga caawinayo bay arkeen marka hadday meeshaas arkeenna inay ka faa'iideystaan waa laga maarmaan marka waxaan idin sheegayaa inay jiraan dad cabashadan qaba u baahan in loo gudbiyo toonaya in maxaan ku dhahay arrintooda wax loo ogaado laakiin qofkii haddii uu aamusnaado oo wixii naqaskiisa ku celiyo oo shib uu ahaado weligii saas ku jiraya laakiin qofkii hadduu sheegto hata geedkan kusbadeedka hata caawa dad badan baan aaminsanaynin ka faa'iideysanaya oo aan kacsanin dad badan oo aan kacsanin baan aaminsanay hata inay ka faa'iideysan doonaan oo aan horey u aqoonin markii talo la isku biirbiirsado ee wax la isweydiiyo waxbaa la kala faa'iidaya laakiin haddii la aamusnaado nin kasta wixii ku jiro iska aamusnaado dhibteeda leedahay marka nimanka wiil wuxuu soo weydiiyey asna markasta waan kacsadaa buu yidhaahday weliba wuu dhahay markaan socdo ayuu iigu daran yahay kuskayga wuu ii hor ortaa waa sidoo hadalka u dhigay isagu marka markasta waan kacsanaa hataan socdo xitaa maxaan sameeyaa dheeridiisana dee dadkaaba ka cararaya marka ay iga hor yimaadaan marka walaalo waxaan ku leeyahay adigana insha allah waxaad xidhataa surwaal kugu dhegan ha qaadan waxaa qaadataa surwaal iska caadi ah oo aan ku muujinaynin baa qaadanaysaa dheerarka dee ilaahay baa ku sameeyey kuma dhihi karayo jar maanta oo xubin aad qaali u aha laakiin waxaad ka yaraysaa فيتامينada badan ee aad cunto iska yare cuntooyinka nafaqada leh ee aad isticmaasho waad iska yareynaysaa marka laga yaabo in xoogaa uu yartib u yar noqdo kullu ma kaabsamayo mana yareysmayo laakiin awood fara badan oo kor ugu kacayo baa ka yaraanaysa taas ka sameynaysaa waxa kale oo aan asxaabta idin sheegayaa qisooyin fara badan oo aanan hadda ka gaari karin xitaa way jiraan laakiin barnaamijyada dambe baan ku soo qaadanayaa marka ummaddu way u baahan tahay barnaamijkan ku saabsan raaxada iyo qofka bilaadmiga wax la soo food saarayo waxa kale oo aan anigu cambaaraynayaa waalidiinta Soomaaliyeed aad baan u cambaaraynayaa baleegata gabadhan yarta ee dhalinyarada 18 sano 19 sano da'deedu u dhaxayso ee ninka 40 sano jira la siiyay ama loo kuuriyay kadibna gabadhi wuu wasiilay ma qancinayo sararta kuma qancinayo qofan sararta kuma qancinaynin agjoogkiisu muxuu ku tarayaa kuri hooyada bariiska maadana waayin
dadkii ninkan usoo guuriyay waalidiinteedana hal mindoo yimaadaan ma weydiinay mana ninka si fiican ma ku wasaayo ma ku qanacsan tahay ma dhahayaan hadii wax weydiiyaan oo badan waxa weeyaan ninkaaga si fiican ma ku dhaqdaa ninkaaga si fiican ma ku dhaqdaana waxay uga jeedaan calashaan biil wanaagsan ma ku siiyaa bay ula jeedaan taasna looma baahna waxa ka muhiimsan in ay gabadha weydiiyaan qofkan dareenkaaga ma taboolaa taas way naga maqan tahay waalidiinteena way ka maqan tahay marka ayaga laftirkooda hadda kadib bal taas ha xeeriyaan hana la socdaan ummadana way u baahan tahay barnaamijkan marka sidii hadda gabdhuhuna runta ha ka hadlaan suurada iyo waxaas ay ku jiraan ha iska daayaan commentiga waxay iska dhigayaan wax nacab oo waxay doonaan oo ba iskaga soo qoriyaan hadhowna intay luuqa ku soo galaan bi kuliyaan ana sidoo ma igu dhacdo kana igu dhacdo kii kala duwayaan marka labadaas laba isqaadato ma aha ma jeclinay igu cadcateeyo laakiin ma fiicna waxaas bulwada daacad baa loo noqdaa runta la iska sheegay waliga waxaan kiisiyad u aqaanaaniga gabadha intay halkaas soo istaagto tiraahdo saas maaniga ama saas qofka fikirkiisu waa inuu cabiri karo dhiiban karayo ka hadli karayo baa loo baahan yahay sida hadda gabadhii videoga iska soo tubtay inkastoo magaceeda garanayno aan ka xumahay tiri anigu kintir mali way saxsan tahay waa kiisinimo waa taageersanay gabadha sorta meel kasta joogto waana salaamaya mar labaad ma garatay waxa jira runta bay ka sheekaysay kintir mali waxay ka wataa waa laga xagufiyada markii calashan la igudayay baa ayaadee layga wada jarjaray bay ka wataa ma garanaysaa marka idinkuna wax fahmadee markii xakaas la aaday idinkuna xakaas aadaan qofka marka haduu dhibtiisa ka hadlo maaha in xumaan loo arko ma wanaagsana marka saas baan leeyahay cashirkeeni sirta nolosha raaxada aadka u qiimaha badnaa u macaanaa nolosha adduunka ahaa caaw intaas inuu ogyahay barnaamij lamida intaan ku kulmi doono waa anigoo iskoor ahaa sidaas iyo nabad keliyo